sida arkaysaan si live hadda waxaa ugu jirnaa tradekeeni live-ka ee maanta oo 16 September isla maraantaasina ardadan ay la trade garanayaan waana live tradingkan sida daily-ga u sameeyo ardadan ay ugula trade garayaan inta badanna London session aad trade garayno waana lacagta dahabka sida arkaysaan tradekan hadda buy baa ugu jirnaa waa 50 pips TB-geena isla maraantaasina waa 22 pip ilaa 23 pip weeye asalkeena ilaa maad iskale already sida arkaysaan ba trade-ka hadda TB1 mar hore una siiyay si nadiif ah markaas uu dhaqaaq noogu sameynaya sida aragtaan markastana trade-ka anagu TB1 baa ku manage garanaa oo profit-kana qayb baan ka xiranaa isla maraantaasina trade-ka break even baan ku xiranaa si gabi ahaanba markaasi aan maaragtay isku protect garano waana qaabka ugu yar sareeya trade-kaaga aad u manage garan kartid in already faa'iidana ka xiratid dhaqaaqa inta leega uu ku siiyay adoona waxba ka faa'iidin inuu kugu soo laabto break even ka saaro ama uu khasaaro ku sii geliyo oo heer aad u liitaa يعني wax ma taqaanay xun weey markasta waxa kula talnaa qaabkan oo kale inaad trade-yada u manage gareysatid inta badanna live trade-nadeena ardada markaan live-ka ku jirno waxaan kala hadalnaa risk management-iga ardaygu sidoo ma taqaanay akoonkiisa u manage gareysan lahaa inta uu risk garan lahaa waxa weeye mindset-kiisa sidoo u dhisi lahaa all the way marka team la trade gareynaysa arintaas way fududahay oo markasta ardada hadalka adeegsado waxa kamid ah yani hadii loss la qaato trade-ka qofka ugu yar khasaaraya noqo simple teamka kula trade garanaya qofka loss-ka ugu yar qaadanaya noqo soo qof kasta markaas wuxuu ku dadaalayaa trade-kan hadii la khasaaro in maaragtay qofka ugu khasaara yar uu noqdo oo marka horeba mindset-kiisa uu sidaas ku programyo ugu dambeynna sida arkaysaan waxa weeye trade-ka TB iyo follow na siiyay ilaa maad iskale maalinka labaad way asbuucan aan trade gareynayno oo suuqan uu furan yahay labadii maalmood baa TB baanu qaadanay full target ilaa maad iskale waxaan rajaynayaa insha Allah inuu asbuucan sida uu noogu dhamaado nabadgelyo